إبراهيم صلاة أنا دلي لبا سنة أنا كرفردين من قرعدي من قريه من هرد من هرجلي باب باكو جرا وان قدنا وان قاد سرير بنصاري حبين دقاقنا مقبو انتاس او السنة ان لكور جوغي ان كرفاد سنة ابسا إذا انت إسلام ومد النبي محمد دبد إيا بحر ببجرطبا وحن كو سلامي هاي عنوغان سيد داقسي هندي إن ليغو قادو oo liigu soo caawiyo dhibka i haasto oon u madoobaade oon u hurdeenyin oon u seexaneenyin oon u qadeynyin oon u quudaneenyin waan u soome waan u salaade insha Allah waxaan rabaa in liigu garab qabto ummadda nabi maxamed nin laba meeshu joogo haddii ay maqlaysiin haddii li arkayba islaamka ilaahay ummadda nabi maxamed aanu cabanhay wax ii horeey wax ii dambeeno ma jiro san ku neefla ummadda nabi maxamed inta soomi salaadi haasaan u baryahay insha Allah waxaan rabaa in liigu garab qabto هندي اللي يقعدوا سيد دقسي هدي سيد دقسي أنا رب أمد النبي محمد إني الضباش عليها ود لي راعيه أو اللي يقرب قبته أو هردين أو سومي يعني الصلاة هايو أنا قوم وحان ربات يبكى إهاستو أن أمدو بادي أو هبين هردين رارنا أن أهرجلين أو قدين هايو أو قاضي هايو أو معين أو ما صبول أن أوه ماشي أن كجيران عريري يبكى إهاستو إلهي أجيه وحان ربا إن هذا يقرب قبتين إن هذا يقرب قبتين وسيد دقسي أو اللي يقعدوا سدا سان ربا سدح عنك إبراهيم حنون كيس وامحي إبراهيم حنون كيس وحاوي أوربا كل عي لف دور كوكجبي لف دور وكجبي مليار الكجبي أو مش قارت وكجبي والله كذا الله ده كبست وحبا أمترين سدح عنك ولا سدح دي عنك يا أنك بدد بانكر صارنا وحان أهاستو أو قضاء أو ما أنت أصوه الرئيس أن أهاستنا مجرو الحمد لله عنو جاي إلهي بايله وانكر رفات سنة ومد النبي محمد أنت سومي هاسو أو صلادي هايسو وحن كربا إن اللي يقرب قبته أو سيد دقسي تبن بري إن اللي قصر دقصر إبكي هاستو هدان طلعنا أن إسلامنا ومد النبي محمد أن شيئا هينو سيد دقسي إن القرب اللي يقصي عن رب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وإن سلام يا صلاة سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية المباركة طيبة سلامة إسلامك وقالي كذب أنيقا وحاليدها مقعيقا الشيخ عبد الرزاق xaafadan hadda aan joogno imaamkeedii ayaan nahay ninkan aad arkaysaan oo xanuunsan walaalka anaga ayaa dibi jajabiyey muddo 2 sano halka ay u jiifaa wax oo macnaha daryeel ma helin waayo dadka uu ka dhashay dhaqaale weyn ma haystaan marka asaga waa imtixaan yahay waa ilaahay imtixaanayo dibgaas ilaahay ku saliday lafta dhabarka ilaa luqunta ayaa wax ka gaareen ma socon karo marka annagana waa imtixaananahay ilaahay nagu fiirinayaa inaan wax u qabanayna muslimiinta inay wax u qabanayaan marka muslimiinta waxaan si naxariis leh ooga codsanaynaa ninkan islaamka ah inay u soo gargaaraan wixii ilaahay idin dhiibay xoolihiina ilaahay inuu idin barakeeyo oo caafimaadka ilaahay idin barakeeyo balaayo dhan iyo aafo dhan ilaahay idinka ilaaliyo ilaahay idinkiis marka ninkan walaalka anaga jiraanna waa nahay imaamka qariidana waa nahay marka in tabarucaad loo sameeyo isbitaalada markii la geeyo waxay dhaheen waxa looma qaban karo hindiya in la geeyo mooyaane lacagta hindiya lagu geeyahay lama hayo marka in muslimiinta looga aruuriyo ayaa la doonayaa meel kasta oo muslimiinta joogaan codkayga inta maqlaysa marka ninkan inaa usoo gargaartaan ayaa idinka codsanaynaa sadaqada waxaa weeyaan faa'iido fara badan bay leedahay balaayo adduun iyo mid aakhira ayuu ilaahay kaga xijaabaya midda labaad maalinta qiyaamada maalin uu har jirin oo hoos jirin oo hooska ilaahay la harsanayo ayay har ku noqonaysaa faa'iida saddexaad waxaa weeyaan jahannamada ayay kaa difaacaysaa waa gaashaan marka faa'iido fara badan bay leedahay
marka ilahi subxana wa tacala wuxuu dhahay naftiisa ninkii ka ilaaliya baqaylnimada ninkii laga ilaaliyo waa liibaane waman yuuqa shuxa nafsihi wa ulaa'ika hum almuflixuun marka liibaan adduun iyo mid aakhira haddaa rabtaan ninkaas waa halka annaga miskiinka oo halkaa jiifo muddo 2 sano saxaradii kaadada laga qaadhayo u soo gargaara ilaahina ha idiin gargaaro garabkiina allah ha galo muraadadiina allah ha sahlo meesha ka amintiina allah idinka waraabiyo musiibada intay kaa maqan tahay ayay qeyrkaa ku maqan tahay annaga hadda caafimaadaan qabnaa waa halka annaga nagu jiifaa beri ka maalin waxaa laga yaabaa inaan annaga soo seexano oo musiibadii ay soo noqoto marka ilaahay subxana wa tacaala musiibada hanaga xijaabo xoolaha allah noo dhowro nafta allah noo dhowro maalka allah noo dhowro idinkana allah idin dhowro waxaa idinku codsanaynaa si naxariis leh ninkaas inaad ka soo jawaabtaan jawaab farxad leh oo ilahina idinka farxiyo idinkana aakhire adduunba jawaab farxad leh inaad ka soo jawaabtaan waxaan idinku duceeynaa inuu ilahay idinka farxiyo aakhire adduunba inuu ilahay idinka farxiyo nin walooba wuxuu jecel yahay uu niyaddu ku hayo oo khayr ku jiro ilahay inuu waafajiyo yaa idinku duceeynaa wuxuu ka cabsanayo oo naarta jahannam u weyn tahay inuu ilahay idinka xijaabo waxaad rajaynaysaan oo jannatu firdows alaclaa ay weyn tahay ilaahay inuu idin siiyo yaa idinku duceeynaa baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr walaalayaal nin walaalkaayna aan la joognaa xanuunsan muddo 2 sano nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisanin looma naxariisanayo ninkan walaalkaayne isbitaal weyn u baahan yahay oo indiya wax caawinayna ma lahaan waxaan isla joognaa sheekh cabdirasaaq xasan oo qaryada ma aragtay imaamkeeda ani kollayto waxaan ahay nin marti haddaan isa soo raacnay nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi qofka intii walaalkiis uu kaalmaynay asagana alla subxaanahu wa tacaala ayaa kaalmayni oo danihiisna u qabane faa'iido fara badan ay leedahay dadka walaalaha oo la caawiyo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa niila gargaari dadka ducafada markaad u gargaartiin aanayla gargaari risqiga niila fidini saas daraaddeed walaalkayna waa inaan macnaha aan caawinno oon muxuu ahaay niyadana aan wanaajinno wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam ittaqu nnaara walow bishiqi tamratin war timir jeexeed hatee naar ka baqa timir jeexeed hatee allah ka dhigay war wax sadaqaysta kollayto bini aadanka xoolaha lagama simin waa kan alla subxaana wa tacaala uu leeyahay naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya dadka noloshooda annakaa qaybinay wa rafacnaa bacdahum fawqa bacdin barkood barka kale aan ka kor marinay saas daraaddeed walaalayaal walaalkayn aan caawinno caawinaadu u baahan yahay inaan annakana maaragtay ilaahi subxana wa tacaala unagu guuleeyo maaragtay aan dadaalno nin allaale ninkiina arki hayo matalan oo dhegaysan hayo waxaan rabnaa in macnaha maaragtay uu ka qayb qaato